السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن وناكسن داوديال meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan. waa mar kale iyo barnaamijkeeni sirta nolosha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya haddii rabbiga awoodda leh raalli ka noqdo anigoo ah Maxamed Siciid Cali Maxamed Turki waxaanad kala socotaan barta aan YouTube-ka ku leeyahay ee Maxamed Turki channel. barnaamijkeena sirta nolosha waxaaynu ku soo qaadan doonaa 4 arrimood oo haddii aad samayso aad helayso isla markaasina aad ka baxayso caqabadaha ka haysta nolosha. waa hubaal qof kasta oo adduunyada ku nool in noloshiisa ay soo wajahayso caqabado isla markaasina uu la kulmayo turunturooyin iyo weliba waxyaabo ka hor istaagaya hiigsiga uu leeyahay inuu gaadho. balse qofku waxa uu kaga bixi karaa waxyaabahaasi oo dhan in uu markaasi u noqdo qof kalsooni buuxda ku qaba naftiisa. haddii ay caqabado kaa hor yimaadaan isla markaasina aad meel u socoto waa inaanad markaasi isdhiibin oo aanad ka niyad jabin waxyaabihii markaasi aad naawilaysay. inta badan dadka waxaa la arkaa in uu qofku uu jeclaysto inuu meel wanaagsan gaadho balse laakiin ay ka hor yimaadaan caqabado iyo weliba waxyaabo markaasi aanu ka dabaalan karin oo uu markaasi isagu isleeyahay kama gudbi kartid balse laakiin ay taasi saldhig u noqoto in uu markaasi uu ka niyad jabo waxyaabihii uu rabay inuu gaadho. arrinta koowaad ee markaasi aad ku gaadhi karto yoolkaaga iyo himilooyinkaaga aad ka leedahay nolosha waxaa ugu horreeya oo markaasi kuu hirgelinaya inaad gaadho waa cabsida alle. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu qur'aanka kariimkaa ku yidhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja. qofka alle ka cabsada waxa uu ilaahay uu furaa makhraj iyo weliba waxyaabo meel uu uga baxo dhibaatooyinka iyo cidhiidhiga haysta. isla markaasina qofku haddii uu alle uu ka cabsado waxa uu ilaahay u fududaydinayaa dhammaan hamigiisa iyo weliba waxyaabaha uu jecel yahay inuu gaadho. waayo qofka cabsida ilaahay mar walba qalbigiisa ay ku jirtaa waxa uu ka guulaystaa isla markaasina uu waajahaa nolosha. waxa uu markaasi uu ka guulaystaa oo kale simbiriirooxooyinka ka soo gaadhaya nolosha iyo waxyaabaha uu markaasi uu jecel yahay in uu gaadhona wuu xaqiijiyaa. waayo cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa ay kaxaysaa oo ay qaadaa hamiga iyo weliba murugooyinka faraha badan ee qofka qalbigiisa ku soo xaadiraya iyo weliba gebidhaclaynta uu qofku markaasi uu la kulmayo. markaasi shayga ugu horreeya ee aad ku gaadhi karto himilooyinkaaga noloshu isla markaasina nolol wanaagsan aad ku heli karto wax kasta oo wanaagsan oo aad beegsanaysona aad ku gaadhi kartaa waa cabsida ilaahay. qof waliba qofka uu ka cabsi alle badan yahay qof walba qofka uu cabsida ilaahay uga dhow yahay waa uu ka farxad badan yahay oo uu ka qalbi waasac badan yahay oo uu ka qanaaco badan yahay. arrinta labaad ee kuu suurto gelinaysa in aad gaadho isla markaasina aad xaqiijiso hamigaaga nololeed ee markaasi dunida aad ka leedahay iyo taargetka aad leedahay waxaa ka mid ah in aad markaasi kalsooni buuxda aad naftaada aad ku qabto. waayo kalsoonidu waxa ay kaa saacidaysaa isla markaana ay kaa caawinaysaa in aad ka takharujto oo aad ka baxdo caqabad kasta oo nolosha kula soo gudboonaata. qofba qofka uu ka kalsooni badan yahay isla markaasina uu og yahay in uu kalsoonidiisu ay gaadhsiisan tahay heer xaddhaafa wuu ka guul badan yahay. qofba qofka uu ka kalsooni badan yahay wuu ka guulaysi badan yahay. kalsoonidu waa dareen naftaada siinaysa awood buuxda oo aad ku joori karto caqabad kasta oo kaa hor timaada. sidoo kale kalsoonida qofku marka uu naftiisa uu kalsooni ku qabo ee uu markaasi uu aaminsan yahay waxaan uu qabanayo in uu markaasi meel sare ka gaadhayo way u fududaanaysaa inuu markaasi uu gaadho. si kasta oo markaasi caqabada ay kaaga hor timaadana
waxa aad marka dambe aad helaysaa haddii aad kalsooni buuxda aad leedahay in aad xaqiijiso waxyaabihii aad doonaysay amaba se aad naawulaysay. masalada saddexaad ee markaasi qofka gaadhsiinaysa in uu markaasi uu yoolka iyo hadafka uu ka leeyahay nolosha uu gaadho waxaa ka mid ah inuu qofku ka faa'iidaysto wakhtigiisa. wakhtigu waa markaasi shay ka mida waxyaabaha ugu qiimaha badan ee basharka bini'aadanku ay haystaan. dunida dadka guulaystay waxaa lagu yaqaanaa waa dadka ka faa'iidaystay wakhtigooda. haddaad aragto qof guulaystay oo meel wanaagsan gaadhay, waa mid ka faa'iidaystay wakhtigiisa islamarkaana aan dayicin fursadihii qaaliga ahaa ee soo maray. dhacdo kasta oo ku soo martana waa inaad wax ka barataa oo aad markaasi wakhtigaaga aanad iska dayicin oo aanad markaasi wakhtigu aanu kaaga lumin waxyaabo adiga aan waxba kuu soo kordhinaynin. wakhtiguna waa shay markaasi soconaya oo ka mid a cimriga bini'aadamka. markaasi waxyaabaha aad guul ku gaadhi karto waxaa ka mid ah inaad ka faa'iidaysato wakhtiga aad haysato. masalada afraad ee markaasi aad ku gaadhi karto guul waxaa ka mid ah waa sabirka. haddii aad markaasi aad sabirkaagu uu yahay mid markaasi xaddhaafa, waad ka guulaysan kartaa caqabad kaste oo ku soo waajahda. sabirkuna markaasi inta badan qofka sabraa, soomaalidu waxay tidhaahdaa sabraa sadkii wuu helaa. amaba se samirku xataa diinteenna marka aynu eegno, samirku waa shay aad u qaaliya oo markaasi qiimo sare leh. markaasi waxyaabaha aad kaga guulaysan karto caqabad kasta oo ku soo waajahda waa samirka. haddii aad markaasi tusaale ahaan waxyaabihii aad naawulaysay amaba si aad rabtay inaad gaadhaa ay hawl bataan oo markaasi aad gaadhi weydo, yaani taasi sababin inaad markaasi aad ka baydho amaba yaani taasi kugu keenin inaad markaasi wixii aad markaasi jeclayd aad iska dhigto, balse waa inaad u samirtaa. dunida dadka nolosha guusha ka gaadhay waxyaabaha ugu waaweyn ee u fududeeyey waa sabirka. waayo qofka kacaakuf badan ayuu la kulmayaa, balse laakiin haddii uu markaasi uu sabro, ugu dambayn waa uu gaadhayaa hiigsiga iyo weliba himilada uu ka leeyahay nolosha. waa tahay daawadayaal, intaasi ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijkeena. waxaan filayaa inaad si fiican aad uga faa'iidaysateen waxyaabahaasi markaasi aynu ugu magac darnay, waxyaabahaasi markaasi aynu kaga sheekaynaynay in aad markaasi ku gaadhi karto hiigsiga iyo weliba hayaanka aad markaasi ugu jirto nolosha. inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono, waa anigoo maxamed siciid cali maxamed turkiya oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo. fadlan subscribe saar, like iyo share ku qabo, lana wadaaga asxaabtaada. inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono, nabadgelyo.